Soomaali ilaahay badbaadiyo. Soomaali ummadii Soomaaliyeed dadkii wax u soo bartay, dadkii madaxda iyo hoggaanka laga sugay kulli khayl wadan bay noqdeen oo jaajuusin oo ku wareegaysanayaan wadamaha jiraanka. oo ana kaaga dhameen waxaan ana kan ku saxiixay ana ka ku saxiixay iyo meelaha la wareegaya xil way hayeen adduunka kale oo dhanna ninka khayl wadanka waa la daldalaada laakiin Soomaaligu khayl wadanka waxa weeyaan waa martaba waa maqaam lagu tartamo sidii maartay laakiin head of state oo kale muddo yar 3 sano markaan soo dhaafnay hadda xogaa yar oo isbedel yar oo kor u soo kacay waan aragnay laakiin waa hadda maanta ay kulli inta wada joogaan adiga raalliga soo shaahid kama tiid inay wada joogaan inta maamul goboleed inta wada joogaan prime minister kor inta wada joogaan kulli aan kala wada joogaan Kenya la kulmaya Imaaraadka inta isku imaaday ajnabi Faransiiska inta ku jira nin alla ninka dan gooni kala Soomaaliya oo laha Soomaaliya hal boobo ayagaas doonaya inay intee xukunka loo gacan maroojiyo bari ay madaxweyne iyo prime minister system ka soo noqdaan ay wixii la rabay laga dhameysto laga dhameysto mid baa jooga xamar jooga oo madaxweyne oo awoodii qarannimada gacanta ku haysta oo oran kara nimankii ka baxeen waxana uu ogyahay kulli mukhaabaraadkiisa way soo sheegayaan wax la qarinayna ma anagii baa og Kenyaanki barba waxay leeyihiin gobolka anaga goosto oo Kenya aan ka mid ka dhigno oo aan idin soo goyno waxaan aan sameeyno wixii baa meesha loo jooga dad baan ku doodahay oo Kenyaanki kasto hadda qorshe dheer uu ahaa oo Ethiopiaanki hore oo nimanka Tigreeda ay ka shaqeyn jireen hagaad la kala goosto hagaad in la kala goostay laakiin hadda waxa ku walaaleenayaan Soomaali dad yar oo iyagana maskax dabagedsan qabaan oo halkan systemka dawladda Kenya ku jiraan Arab iyagana dantooda iskale Imaaraadka iyo Sacuudiga oo cudud dagaalka joogtay Faransiiska oo istusahay inuu meelihii la isku haystay badda iyo waxaan soo kale faa'iido weyn u ka helay marka wadankii baa loo tashanaya marka loo tashanayna dad ajnabi oo doonaya inay wadankii khayraadkiisa asoo dhanba la wareegaan ya talada ku jira taladii ku jireen waxa ay inta u yeerteen ay wax ka dhaadhiceen hool gelinayaan inay u fuliyaan ay rabaan iyagana dhaqaale wax kasta ay siiyaan waa Soomaali xagga xilka soo haysay maadaama ay dadkii la og yahay inay khayl wadan yihiin markay imaadaan mujaalka ku tuura kulligood markay ka soo baxaan wadanka waa nidaamka hadda ka jira xamar waad markay soo baxaan moodiida inay soo galaan wadanka dib ugu soo noqdaan you can't be allowed simple bal asagii bay la hadlayeen maamul goboleedyada kuwa kamid ah mid kamid ah waxa la yiri markii wada hadalka ay Abdullahi Farmaajo iyo systemkii banaanka uu soo bixi telefoon buu soo diray inta say saaba leeyahay maxaan sameeyaa yani hatta wadan kale asoo joogo kuma shaqeynay midaayada mukhaabaraadkana way dhageysanayaan oo Soomaalida way dhageysanayaan halkan Nairobi loo soo diray say saaba lagu yiri maxaan ka dhaha saa ka dheh yani khayl wadanimada waxay gaartay a level or a scale unimaginable. You can't even imagine that happens in this world. And maanta dhacaysabo هذا imagine garay karin weeyaan waa lagu wada nool yahay خلاص bas la socdaan waa la qoqoslaya waa la seeshinaya tanazulaad baa loo sameynaya left right and center ya 300 qof baa leeyahay inta Soomaaliya inta baahan hadana tii bay diidayaan oo leeyahay maya ciidamada qaranka ha laga qaado meesha ciidamada ajnabiga ay imaadaan ciidamada qaranka ha laga qaado meesha oo gada ha laga qaado ciidamada ajnabiga ay imaadaan ciidamada ajnabiga waa Kenya waariga marka ana maxay ciidamadeedii marka maxay u ogolaan kara ciidamadeedii inay meesha ku jiraan qarankiina ciidankiisa uu san meesha ku jira iyo ninka ku hadlay oo jaahilka oo xad dhaafka iyo kan jaahilnimadaas ay tahay jaahiliga caankaas ogolaanayo oo ka dhageysanayo oo la dooday isku dayay maartay in dadka uu ka kasbado waa khaain marka tartan lama galo maxay popularity contest lama galo marka horta ummadii Soomaaliyeed Ilaahay uu maqan yahay ummadaana dhisan mooyee
madax haddii la dhaho inkaar baa dhacday cuqubaa dhacday inkastoo kuwa hadda xukunka hayaan aan isleeyahay siiba madaxweynaha aan isleeyahay wax badan buu dhaamaa kuwii ka horreeyey rajadaanadan aad bay u fara badneed haddana weli calol adeega aniga aan meesha kuma arko maxaad rajaynaysaa inay ka soo muuqato tallaabooyin aad adag u qaado waa qaran baad haysta adiga laguma soo faragelin karo hadduu dhaa ciidamada Kenya iga baxaan hadda United Nations wax kastoo dhan amar la bixiyo oo ciidamadiis intuu isku dibadrida 30,000 oo ciidamada maalin kasta ya inta kun baa soo baxda ya tababar loo soo xiraa tababarka ugu dambeeyay Afrikaan haysta tababarka ma jiro maxaa loo tirtiray al-shabaab muddaha wiilashiisii alaabtiina la qaatay lug ku ceyrsada waad garasoo saas badan wate shacabkiisii baa lagu laanhayaa wadankiisa dhexdiisa oo dad ajnabi ku laanhaya ciidankiisa ma amarsi oo dhaha intay imaadaan annaga haddii amar la naga baxana la yidhahda intaasaan idin siinay la yidhahda laba toddobaad baa idin siinay ciidamada Kenya ka bixiya meesha ka bixiya annaga suganayna ammaanka annaga ka baxa waxaad tihiin you're a threat to our own security قصل iyo lana macnayo ma jirto this is a state of belligerence baa lagu jira danihiina inaanan dadkii jiraanka haddanahaada aan ka shaqaynin way ku muuqataa haddaad dhiman xayinimo u dhimo iyo raganimo u dhimo rag iska celi soma hay Turkiga waa diyaar waxay leeyihiin ii saxiix mutual defense pact Turkiga iyo Qatar ay saxiixdeen oo kale maxaa u diiday inuu saxiinta ما مريكان كشالة لقي إمادة باسبور كيس هيستوى لقى عبسانية ما قلت لك ما إنجليز بقى لقى عبسانية مريكا البلد بقى ما نوروي بقى لقى عبسانية ما هذا خاصة غير ممكن ماشي جوي نوروي بقى ضل بقى لورنشري ما قلت لك ما كوكلوا عضان مريكا البلد بقى لقى عبسانية وهم حي وحن مكلبح why can't we get to the ربط مع الله تكو إذا ما لفتيجود لك لا توبري قدر كوي توبريان تركيا قلينا توبري والضمان كلا دوني كلا توبريان بل سيدي سولا قبسان كران مركات فيرس قلت واحد لا توبري ودنبوا كوماندوس انت بدنا رجل توبري وان من اد ما عرفتي وكوماندوس انا نجيرين افريكا مدوي كويرين انا كوشي ريسو لما حتى إثيوبيا إنها توبر كهركة مارتي مالا بالكوسي إريتريا لسه سي أو كلي تركيا لسه سي أو كلا حتى وضمان أفكار كان ما يستان وهذا كرسمه حاجة ماشي بوجهه أنا بوجهه اللي هو الجريء اللي بعيه هذا حويان أم بورها وأم بور كتير سنة حالنا وحكوا جيران توجي إيه ودم بكوا جيران وأمريكا وكويه أمريكا باك عبية wanaagii hadii laga waayay wadankii way daldalanaya khayraadkiisa hadda waxa la leeyahay waxa lagu bedelay Boosaaso heshiiskeedii waxa lagu wareejinayaa Yahuuda wax ka jiraan mooy baraha bulshada ma ka arkay laakiin waa fikir la gaari karo firi 1915 dagaalka adduunka oo koowaad markuu bilowday yaa waxaa Jarmalka la dagaalamayay Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka Talyaaniga colaadda la soo geliyay la rabay Talyaaniga marka wuxuu qodobo ka dhigay shuruud ka dhigay haddaan kula la gelay dagaalka markii dagaalka aan dhameeyno ka adkaana Jarmalka gobolladii iyo wadamada Jarmalka laga xoreyn doono oo ay gumaysanayeen oo Afrika ahayd وانا انا قيب لغسيا فرنسيسي انجليزو waxa laga qaban doona Jarmalka waana aniga qayb laga siiya equitable magaalkii in la isiyo qayb iyo anfacdo waa marka la siinaya Jubaland ila Jubaland Ingiriis bay gumaysanay waxay ka mid ahayd Kenya colony of Kenya bay ka mid ahayd كورن كينيا إنجليز بهجاجي كينيا بدن سيجري جنما قبائل نسكو ما تو مالا ما أسكت فريام إنجليز ما نوي ما ذي ما عبوا نوير ماونت كينيا يويدي وروام حي بورتا محيتي كينيا جا بيكون كينيا جا وأفكر كوكيا كينيا وبهي حد ما آمن يسائر إليهين أنت إيه كتير مسكح كل شقين هاي السوق النظام كسيستم كدولة ده كجرت لليه هجيب الله أن عندي بس عشانه سومالي محيرين شرتي دون الصومالي اللي ذهب عنها مقط هشيس لكن كينيا ودحي إثيوبيا مركز روحيات
hadna qaybtaa qaado annagana qaybtan aan qaadano laakiin marka waxay ahaayeen laba wadan oo riyoodeen of course Soomaali dhulkeeda lama qabsan karo Kenyana mooy markuu meesha ku jiray shakada waa la xiray ma soconaysaa la yiri hadda bay soo hor soo kacday markay nimankan dhagax ee xukunka ay heleen ay doonayaan badda la isku haystay waxyaabo cinkaas oo xamba adiga istusayeen niman Soomaali oo maamul goboleed ka shaqeynaya waxay oranayaan waday yar baan haystaa meeshaan doonaan xoolo u raadsan ninkaan doonaan la heshiini qarankii baa lagu duulayaa this is a dream it doesn't work tan waa riya mana soconayso annaguna waan ku fashilmayna khasaarada naga soo gaaraysan ilaahay baa sheegi karaa nagar halkii hagaadhe laakiin the mere fact that nin baa wuxuu yiri cariyan waan ku dharbaaxay markaas cariyan dharbaaxay waxaan ku murmayna soo dhankaada ma yiri the mere fact that inay ka dhaadhici karto niman wiilal yaryar oo intay jaamacadaha Kenya ka soo baxeen halka systemka ku dhex jiraan soo aan qabsano dhulka Soomaalida oo lagu habeysanayo kaliya waxa weeyaan waxa la isku haysto dhankaada ma Ethiopia way ka gudubtay midayadeed maanta Ethiopia waa marka kali oo nin la soo gumeystay oo Soomaali waa xukun ku haya you know simple as that aan ku sheegayso ninka Soomaaliga cadigiisana ma garanayo xabiibkiisana ma garanayo Francisco regal bad waxay Soomaaliya waxa laga qaban karo ilaa Ethiopia ay soo raacday Kenya mowqifka Kenya la rabay laga hirgeliyo oo ku saabsan Soomaaliya waa in Ethiopia la haysto hada Ethiopia la haysto oo lagu fashilin waa 120 milyan mana ogolaanayaan waxyaabaha barkood ma gartalkii kii aan ogolaanaynin oo adiga kula jirayna wanaag maanta loo hayo oo Soomaali abi iyo ormadii meesha u haysta ma aragno kii baabiinaya waxaan soo dhisay oo meel saxaara waa kii shalay la daba socday madaxweyneyaalka Soomaaliya ugu yeeri jiray maxay ahayd inay jigjigi ee tagaan iyo gobol baalkii oo arsaba ka dhigtaan xaramkii maartay meesha ziyaarada loo tagay so in reality markaan ku sheego waa lagu maqayn Soomaali waxay kala ogtahay namara maamul nidaam adag bay u baahan tahay nidaamkan hadda kulli hadda maanta dhowrkii sano oo soo dhaafnay nidaam qayb kamid asaga hadda iyagoo dhanba ay ku midaysaneen hate diidan oo hortaagan waa jiray meeshii laakiin diidmo kali aniga uma arkay inay tahay ay xal tahay qodob talaabooyin dheer oo culus leeshi maxay Turkiga leeshi Ruushka ma gartalkii kuwada kala adiga soo dhaweyso wadankaada gacanta ku soo galo xalana ka bixi Mareykan iyo Cadaan iyo Tuwada ku jirto dhanba ka bixi khayraadkaada la arursanayo ka saar meeshii waxyaabahan ma artay basaasi laga sameeyay macdantii iyo burii kullu lagu wada jiro oo dekadii waxba leeyahay hala siiyo protest not kali hadii la sameeyo oo hadda ay tiraahdo Soomaaliya ay United Nations ku tiraahdo ha iga baxaan aniga wadankayga maxay ahayd waxyaabaha ay ka sameynayaan Imaaraadka waa lagu qasbay ciidamada Soomaali hadda isku tashato shidaalka kaliya Soomaaliya lagu isticmaalo maanta horta shidaalka Soomaaliya lagu isticmaalo beeca ay lagu keeno iyo canshuurta la sii waa midda ugu yar adduunka dhanba taxation kali canshuurta kali hadii si fiican loo aruuriyo lacagta ay ka helayso dibadaha aad ka helayso 3 jibaar baad helaysaa ilaa Soomaaliya waa dad firfircoon oo dad waxa weeyaan it's a trading society all they need to do is to seal those loopholes key tax bracket kana la balaariyo al-shabaab baa ka qaata meel kasta oo macshur wada canshuurtii dawladda dekedaha iyo airportka iyo kali hadii la sugo wax aad uga baahan tahay Mareykan in kale midna ma jirto markaad mowqif fiican istaagtana qasab wadamo deeq bixiyaan oo ku garab istaagi baa jira oo Japan ay kamid tahay ma gartalkii oo wadamo badan baa jira oo ku garab istaagay galbeedka dad kamid baa jira waa la kala bixi marka soo toosto cid baanan doonayna adigana askan aad meesha ka saarto ku imaan oo koran waxa rabtaan kula qabanay anna maxadii uga sheekodi oo wax yar wax aan ka dhibin dad oo galaato wax kastan ay kula qabanayaan laakiin horta waa in xoolihii ninka lahaa uu istaago oo yiraahdo xoolihii horta banaanka laga maro way fahamsan xoolihii banaanka laga maro waxa la sameyn lahaa anaga sugayna in la sameeyo shidaalka in la auction gareeyo oo shirkadaha waaweyn oo multinational ka laga auction gareeyo
ma aha nin yar oo jeebka ku wadanaya waxyaabahan loo ordayo ka dalaalay si Soma Oil oo kale oxygen mobil ya nimanka la Chevron ya shirkadii weynaa Shell BP kuwaasoo dhan la heshii kula wareegaan the moment la sameeyo contractiyaha kulli la sameeyo agreementkii loo hagaajin waxay agreementan caadiyan nimanka technical kaay madaxiyo iyo wasiirka baas ka hor imaad nimanka waxay leeyihiin ninka wuxuu rabaa wasiirkii wixii lamid ka oo dhan ba iyagana waxbay ka sheegayaan oo leeyihiin waxaan in laga dalaalaa la rabaa wasiirka dalaal rabaa sanu ku adeeganaya migrantaalkii ma iyagii baa caanka wixii soo in si cadaan intii miiska loo saaro ka bacdi tilaabo lagu qaada maaha meesha danta wadanka lagu tilaabo qaado laguma tilaabo qaaday si u daba jiitamaysa doorashada la gaari siyaasiyiinta inta badan lagu eedeeyaa in markii xiliyadan oo kale la gaaro xiliyada campaign-kii ololaha doorashada markii la gaaro in qaarkood ay lacag ka soo qaataan ama lacag ay ku bixiyaan wadamada khaliijka maxay tahay haddii aad xog ka hayso sababaha wadamada khaliijka iyo wadamadan kale ay u daneynayaan arrimaha Soomaaliya khaliijka 80 sano Soomaaliya xortaana ay ahayn khaliijka waxay Ethiopia ku bixin jireen dagaalka hatta 77 inteen la geliyeen danta laga lahaa Soomaaliya in la geliyo Soomaaliya la geliyay Soomaaliya intii la geliyay inay burburtay 100 sano hadda ka dambe kor soo keen gacantana laga laabto oo ay burburto khaliij ma ogola in la soo saaro kheyraadka shidaalka oo Soomaaliya ku jirto shidaal bilaash buu siin jiray waqtigii Maxamed Siyaad Barre Soomaaliya la siin jiray sifa u soo saaray shidaalkeedii وأنا كورنا بيرتا هذا فرني لكن وعلى ذلك أنت ويجي صدق شير من كوسين لو مع الموضوع كاجو كوسين لكن صدق مع الموضوع كوسين أو أتكو قرعة ما يفهم صح مركز تنا وحاول شري وندد لو أدينا هي أو صومالي أو بس قلنا يرلسيني بس خايننا ما داسيت ما أردك قام قلها وخاين الوطن ما مشي وسرس نالو تنشيجي تطبع حتى يقول حناقي أو وراني يا فارع معونين كستولي وراه ده والتاريخ تبين مشيكته ورنين كست ديب هالله راعو تاريخ ديسي أباي فارع حيدوارة مع محمد أحمد حدو خاين وها إيسو عداد أباي خاين وها عندي خاين الوضن ما ماشي معك السمي صفاء جيلالك الدنبا اللي اسكاق فيريا وحيامها سوكرا ومدى أنا الولا دقاني وهذا قرتي سوا لكن لما عنانتان معانا داتشي ninka waa nin hebel loo reebel loo hadii wax laga sheegna way xanaaqayna dadka kan jaahilnimada iyo maskaxda saa u qurunsan dadka kan way do bring that kind of a thing and 21st century ma kuna aragtaa taas oo kale you can't maybe waxay ahayd stone age history bay hatta 150 sano 200 sano soo dhaafay maskaxda ay socoto islaamnimada markay imaatay maskaxda soo kale baabaday laakiin maanta 21st century رئيس الوزراء عصوب الصومالية مدن الربل حصوم عاوي وزير عصوب وقت جد دراسة الصومالية كريم مدة كابن واي مثل هذا هاي جد دراسوين ك طبعا كران حلو لو تلاقي الدراسة يكون طبعا كران ما دام وقت جوك أنا مقرناي to be very honest you مركز أنا قاعد ويدسه إن هرت one man one vote كل وضع ربي جعلها أوكي أنا ما رون باكوري ماذا إلا صدق هذه بقول وقف شن بقول وقف كون شن بقول وقف أنا يدورتان ذكر ونستوسي لكن هذا بقول الله بس الله مدين بقول يكوم يا بقول يكوم عليه كل هذا ذكر ونهدى لي وانس ما كرنا أيجو أمبان وما أردت أن كور سوينا وذي فهمت السما إسلكوي بقول يكوم كدقي يا هذا كسر جيدا ولا يارن دي بالله ديقو سما marka ma jira war maamul goboleedii iyo nimankii meelaha ururdahay hadda maxaa ka dhaaracsan waxay rabeen soo lama samayn saxeen doorashada samayn soo 101 lama ogolaan oo farmaajo ma ogolaan inkastoo aanay aad ii dhibtay midayada migartalkii haddana intay joogaan maanta لكن حلقاً معقول ما تهاي مركز في رصد الصومالي حلقة وكجرو إن دورش قفي عض يكدعي كرتو وهي هاي الشرع محل لها قرية قعدة سمين يا نكاد يركب قرية قعدة سمين والله صباح نصبح
Soomaaliga بالجهل عنك جاري فيه ومدي بان دب أقول علنا دبعت هاي كالي ديار بان هاي كالي دورشة سبعة صلما دين هات ما يماذا هات بدورشة كلا ما يقولان دورشة هات معنا وحوي يندد أجنبي با يا ما أنت نساك دقي برينا ساك دقي بريد ما نساك دقي أنت نكد دقي دت كان وعمل دت كان ومسينرس مسينرس كنت ماشي انت اللي قليه فعلا انت اصلا بقول انت اصلا كن يوغا ان هلكا لا ودا لايو كل ودا جراف شنت لكن ما داعيس وقت هذا اللي جوا اساسك هاي فهم سما ان ادق بي وبانت ولاalo nin adag oo ninka qarannimada qaynwada noqdo dhul kurka ka gooy ay u baahan tahay wixii ka dhacay ka dhaco wanaag ma ka imaan laha ana ku sheegayso wixii ka dhacay ka dhaco laakiin dad intay dalaalka ku mameen dibadaha ka imaadeen intay ordahayaan iyo kuwa gudaha joogaan iyo kuwa Nairobi joogaan waxaan ka soo kala dhan maanta oo dhan bas wadanku sida wada habboobaan soo madrigan wadanka habboobaan soo madrigan hadib kale la ajadu la soo maanta ana ku soo baabin Soomaaliya saartana Tigray baa la soo bari hore Tigray markay meesha ka baxday oo abi uu imaado wax kasta rabta ma la qabanay diyaar badina hadana abi tagi malaha Soomaaliya maadaama danta Soomaaliya ka shaqeynaya abi hada damba laga malaasay laakiin Soomaaliya burburna daytay afar maalin kasta too inta sababti u tigreed hadda marka waxa aaminsantahay in abiya oo ka shaqeynayo Soomaalida siyaasiyiin ihsaan uu ku sameeyay adiga wayna tahay malaha asagana waa lagu jiraa hagaadheena wuxuu ka yaabayaa in cududdanaytu ay intay saarusaan Tigreed iyo Amhaaradii caanka ay ka hor imaadaan oo si waliba kale uga hor imaadaan reer galbeedna way ka soo horjeedaan maxaa dantii ay kala hayn Soomaaliya oo meel is u fulinahay ayaa isaga hor istaagay Kenyana hadda laga soo horjeedaa oo inta hadda lagu karkarinayaa sida asaga hatee loo boqmagoon lahaa kullina maxay isku soo urursanaysaa Soomaali sandan anaga aan keenno maxaa ka dhigay kii loo hiilinayay ma ogaan loo hiilinay ka war waa kii loo hiilinay waa kii Soomaaliga anigana waxaan ku ahay dhiig iyo jinsi baan ku ahay adna waxa arkaan qaran ku tahay aad u maasan tahay ugu dambeyntii maxaa tala ahaan aad soo jeedi lahayd maadaama dalku xilligan uu galayo kala guur uu galayo doorashadii ay soo dhowdahay hadalkaaga ugu dambeeyay wallahi doorashadan dad baa la qaban doona waxay ku soo bixin ku soo baxo laakiin shacabka Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed warwadankiina waa lagu soo duulay ogaad cadow baa ku soo duulay cadowgana ku adiga adeerka imsa abaha imsa qaraabadaada ayaa hor wada waa kuwan anaga inta noo joogan waa kuwa maalin kasta dibay Abu Dhabi tagaan waa fahamtay sama waa kuwa ku wareegayo oo jaajuusin oo safaarada Nato Kenya joogan oo reer galbeed aan ka bixin 24 saacadood warisgaar wadankiina badbaadsada jiilka uu tagi kun sano hadda ka dambeeya wadanka ay laakiin hadii la yeeli way midda beri way umad Soomaaliya dhameystay jirtay ali beri sida Ali Baystenka loo tirtiray way badalkii sida Ali Baystenka looga tirtiray Americas sida loo tirtiray nimankii Carabta oo Muaska la oran jiray oo Moorish Andalus degana 9 milyan ay hal mar wax kristaan laga dhigay iyo wax la dilay wax la fijay laga dhigay ma laha afarkooda maanta ma there's no trace of them marka maanta waxa loo tashanayo oo nimankaas oo dhan Mareykanka iyo Yahuudka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo reer galbeed oo dhan kulli waxa weeyaan war dadkan yar say ku heleen nimcadanayto Arabtan hadda aan sheegay nooc amilka iyaga Afrikaankan lagu adeeganayo oo wada deenta say warsanayeen meel ka baxaan la oo Soomaaliya waxa rabtaa iga dhameynana anaga waxna siilay anaga hadda markii aan Faransiiska aan u dooranayna deeq ideen u dooranayna waxaan ka gadeena waxa laga gadayo laga dalaalay kulli oo Soomaaliya kale hadda Ethiopia waxay ma system kale ka duwantii hore Ethiopia meel laga marar leeyahay taas dadka oo dhan nin kasta break oo gaal u qabtay low meel is u joog maanta shay ka duwan baa ka dhacay Soomaaliya gudaheeda ilaahayna meeshu ku jira marka lagu tashado
ilaahay ku untayna waxa weeyaan xisaabtankiisa waa mid kale anuu prime ministerkii hore oo Soomaaliya saaxiib baan lahaa aqoon badan baan u lahaa aqoon laakiin aqoon nin Soomaali oo Nairobi ka shaqeeyaan u haystay bari hore aqoon siyaasi oo ma haysan ilaa siyaasi kuma san jirin laakiin maanta maadaama halka uu joogo oo tashiga loo tashanayo Soomaali waa asaga halka joogo dadku wala fadhiyana aan garan oo wala tashanayo anigu ka gawaanja kula dhax oo Soomaali lacag ku jira ilaahay sheey kara oo annaga wadankaas joogna aan maalin kasta aan isgaraacino waad garanaysaa adiga hatay haddii uu yeeray telefoon ka waran uu yiraahday xasan ali khayraad jooga hadda hataa adan rabiga adiga arki rabin aniga sababteedu walaal maxaa ahayd ma ku ri sababta lagu arkay macrifada ixtiraamka naga dhahay waa ninkii aniga aan qiinay wiilkii aniga aan qiinay oo Kenya aan ku soo dhaweeyay markii hore oo 12 sano inta aan wada joognay ayaa maanta isku kalsooni la'aanta Soomaalida heerkay gaartay iyo khaainimada si heerkay gaartay yaa wuxuu door biday oo uu ku kalsoon yahay inuu nin kale oo Kenyan oo ku intuu soo maray aniga sida lagu raadiyo oo la dhabar kale la sheekaysan ninka telefoonka intuu qaato warfaana macna u dhigi karkaale walaalo waan ku warrama bal wixna kala qabsada xagga ciidanka waan aan dhageysto oo la arkay inuu masagartiisa aan la qaadan lahaa masaan ka hor imaan lahaa oo la arkay maartay la talin lahaa kasto taliyada hore u soo qaadan taliyada hore waxay ka dhaxbax meelo kala tag waqtigaada sug maanta systemkii aad adiga ku soo jirtay kama hor imaan kartid oo bilooyin kali ciidanka aad ka dambeysay hawo kale kuma geli kartid maxaa ninka soo shaqeynaysa waa ninka kugu aaminay shaqada laakiin ninkii laa mutacallimka oo darajada soo hayay saaxiibkay for a long time ayaa maanta Kenyan iyo memberin baarlamaan iyo inka dhex ordaya oo Kenyanka dhex ordaya oo xukunka ay la qabto Kenyan balaas ku qaban majacayl lagu jecel suuradaada iyo dheerkaada iyo af Soomaaliyaada lagu jecel yahay lagu qaban marka sababta goonida oo halkan u jooga marka xog ma kaysa reede waddankiina cishada anikeygan ha isoo dhaxgelina kan annaga dhibka annaga isku wareersan waa ifaantay Soomaa nin kale oo aniga aan isku darajanahay hadda dabadhilif u sii noqon rabtiin ninkii oo waddankii dana ay ka wataan iyo dana ajnabi ay ku adeeganayaan looga hirgelinayo Soomaaliya ma tiinta annaga baa anta halka ku dhiqumnaa oo gobolka ugu liitaanahay dhibkeeda la dhibkeeda aad u ballaaran ay leedahay aniga ma ogoli in waddankan aniga aan ka tirsanahay oon ahay oo nin iga leh aan jirin oo huur inaan kala imo aniga leh asaga in looga duulo Soomaaliya ma ogoli kama looga duulay hada waxa u fudeynaa inuu Soomaali waxa indhiga Ilaahay tusay من Soomaali oo xamar ku dhashay oo asalkiisa horena ka imaaday gobolkii Somali State Ethiopia oo inta joogo oo jaajusnimo heerka uu ka gaaray saddexda wadanba jaajus u oo la fariisanaya dadkii mukhaabaraadka ugu weynaa Kenya oo yaqaanaan oo darajo ayaga dhaxdooda ka af Soomaali ma yaqaan af Ingiriis ku jabnaaba bal intuu ka keenay kale garo تيجي ما تروح وهذا قرصمه marka waxaan iska noqday value system noqday marka anigu waxaan leeyahay wareeda shacabka Soomaaliyeed war ummadii Soomaaliyeed zaylac ka soo bilaabato ilaa iyo Raaskambooni war shacabka Soomaaliyeed wadankooda ha badbaadsadaan war waxaan madax isku sheeg oo wada maartay wadankii in ay sariftaan diyaar u ah wada garanaysaan iska gaara hal iska gaaraan leh way fahamsama koobka shaaha oo cabaysan waa koobka Ilaahay ku qoriyay wax kale ma asoo xalaal meel kasta yeela meel kasta soo xalaal biyaala afar ma baahnid wax fara badan inta aniga garanay maanta oo billionaires multi billionaires ahayeen oo markay dhinteen maanta tacaruurtoodii ay masaakiin yihiin ma maleyn kartid sana ku sheegayso
xaaraan wax ku imaadayna meel lama gaaro xalaashaasi carruurtana wax ku baran oo xalaal lagu soo koriyay wax fiican bay noqonayaan wax qabsan karaan way fahamsan yay noqonayeen anaga Soomaali inaan waxa anaga yaraa oo aan helnay oo bashirada anaga yareed iyo noloshaanada aan ka helnay aan ku bixin mooyee way fahamsan hal nin baa dad hadda joogo oo la arkay inay fiirsanayaan intay u soo direen been afkiisa kaliya naga qabsada $10 milyan baan siinayna wadanka Soomaalida miya maya Ethiopia berigi hore oo nasayni hanaga aamusun kaliya meel ismu nooli marka $10 milyan baan siinayna yaa bixiya lacag oo Soomaaliya la lusha oo kala lusha ma garan imaaraadka ma garta halkii Ethiopia marka hore joogtay ya siyaasiyiin Soomaali waxay wax ku heleen meel laga soo qaaday oo madaxda ahayd sama Kenya inta wala ninka la dagaalamayo horta ogaaw wax uu ka naxay oo ka carar adigana waxa la yiri dooli ya cararay suu cararay buu dab u galay marka wuxuu ka soo cararay waa dabka ka kulaba la yiri ya ninkan iska nool oo pensionkiisa kiraari pensionkeyga waa iga badan hadaan ku sheegay waan ka helay dawladda Kenya oo dadkiisa carruurtiisa ay wada shaqeynayaan oo wada noloshii yareedna haysto intana wax kasta looga ogol isagoo ma diidan mooyee ayaa wuxuu leeyahay war ka baxay war iska gaaray war ka cararay cadow baad ugu soo socday way fahamsan marka waa inaad fiirisaa oo ninkan qatarta kasta gelahayo waxa uu muuqda anaga waxay nagu muuqan lahayd marka horta walaalow anigana saan waan 30 sano ku dhawaan hadda aan qaylinaya maalinka Soomaaliya burburtay hadda maanta dhaxdood wallahi Soomaaliya soo imaada waxaan iska gaar maalin ka dartay ka sii daraysa way rafiicnaan haddana waxa mutation wax la jira germs ka maartay hadda coronavirus hadda uu mutate garanaya midkii ku bilowday ma aha markii daawo la dhac ku keen kaaran baa soo noqon hadda ku kala keen kaaran baa soo noqon marka hadda dhalinyaro yar oo primary school dhiganaya markii Soomaaliya burburaysa 1991 way wax hadda wadanka sarifan rabaan oo yaani qaran jiri jiray iyo waxay radio Muqdisho baa hadda dhagtaan ka qaylnaa wali Hargeysa waxaan soo arkanaa oo taxi driver iyo orod iyo Mareykan iyo Ingiriis iyo Scandinavia iyo waxa soo kale jiilka soo socda ku ah they don't know the history taariikhda ma soo marin ma baqabaan nostalgia waxa wax aad u hiloobi oo indhaha ilin ay ka soo istaagi heesaa barkood marka maqashinka Soomaalida niyadda ay ka tahay waa ilin ba ku soo istaagi muxuu ka garanayaa in markaas afar jirkii maanta waa 30 iyo dhowr jir buu jira waa rag dagaalamay tartamay ku raasanaaya 10 jirkii ma garanay bariga afartan dhowr buu jira maanta marka horta waan saan idin sheegay wayaane ilaahina aan isku xirno insha Allah biidna Ilaahi al-Baari anigu waxaan la taaganahay inaan u sheego u diiwaan dhaw war idin tashanaya war iska gaara war cadawgiina wuu badan yahay war cudur kala ma qabtaan khayraadka aad ku jirtaan in nimcada Ilaahay nasiib la idin ogolaan lahay